waxaan ku hormaraynaa sheekha mawduuca uu ka hadlay su-aasha ku saabsan sheekh waxaa ka hadashay in allah subxaanahu watacaala adduunyada aan lagu arkaynin aakhiro ma la arkayo ilaahi subxaanahu watacaala haddii la arkayana maxaa u daliila mise dadkoo dhanna ma wada arkayaan mise dad gooniya baa arkaya masalada ilaahay in aakhiro lagu arkayo waa masalo qur-aanku sheegay sunnada nabiguna sal lla lay slam mutawaatirka ah ku timid salafkuna ridwaanullaahi calayhim ay isku waafaqeen qur-aanku aayado dhowru ku tilmaamay wujuuhun yowma-idin naadiratun ilaa rabbiha naadira wejiyo ilaahay bay maalinta qiyaamada fiirinayaan oy daawan doonaan sidoo kale allah tabaaraka watacaala wuxuu uhi liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada dadka adduunka intay joogeen wanaajiyey camalkooda waxay leeyihiin tii ugu wanaagsaneed oo jannada ah siyaadana way leeyihin bu alla yidhi tabaaraka watacaala nebi maxamed siyaadada wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim ilaahay wejigiisaoo la daawan doono buu ku fasiray aayadaha macnaha tilmaamaya marka way fara badan yihiin magaa la wada arkayaa mise dad gooniya arkaya ilaahay waxaa daawan doono ku raaxaysan doona daawashadiisa iyo fiirintiisa maalinta aakharo waa muuminiinta oo keliya amaa gaalada maya waxaa rabbi yidhi tabaaraka watacaala markuu ka hadlayay kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun maalintaa marka la gaadho rabbigood waa laga xijaabayaa ma istaahilaan inay ilaahay daawadaan tabaaraka watacaala marka iyaga la tusi maayo gaalada laakiin dadkii muuminiintaa markay jannada galaan ayuu alla tabaaraka watacaala jannada dhexdeeda waxa yaalla wax ka qiimo badan oo ka fiican ayuu siinayaa oo ah in uu ugu nimceeyo daawashadiisa marka hadday tahay yaa arkayana waa muuminiinta oo keliya oo gaaladu lama wadaagayaan gaalada waxaa lagu ciqaabayaa in ilaahay iska xijaabo muxuu ahaayey masalada aragtiduna oo ilaahay in la arkayo maalinta aakharana waa masalo qur-aanka iyo sunnada mutawaatirka intaba ku yimid culimadii salafkuna isku waafaqeen ridwaanullaahi calayhim wallahu aclam